بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Nisacali Jaamac xaaska Cabdisanaax Axmed Cigaal kuna ku xidhan magaalada Muqdisho waxa la xidhay 3 bilood ka hor asagoo madaarka Muqdisho ka soo duulaya oo u soo duulaya magaalada Hargeysa qadadana aan ugu sameeynay magaalada Hargeysa waxaan ogaanay goor 5 barkii in la xidhay sabab loo xidhayna aan la garanaynin marka wuxuu ii sheegay inuu la xidhay laakiin aan wax loo xidhay aanu garanaynin qolo booliisuna ay qabatay warwarka mu muuqan xaaladiisuna oo fiicnayd laakiin imika warwarkii baa taagan waayo 3 bilood ka hor qof la qabtay oo noloshiisii la haynin waad garan kartaa xaaladiisa xaaladda qoyskiisa waad garan kartaa mashaakilka iyo dhibta soo gaari kartaa cid kasta oo la xidhiidha ahliyaadkii iyo cid kasta oo maxaan ku dhahaayay doonta inay soo aragtay loo diiday la maqlin meel ku xidhay la ogeyn maxaan ku dhahaayay waxa naloo sheegay maxkamadaha iyo xeer ilaaliyaashii inaanay wax dambiya loo haynin looyaradii loo diray aan u qabanay aan kiiskiisii loo dhiibin sifa sharci darro loo haysto xogtana soo gaaraysa waxay noo sheegaysaa in sirdoonka Soomaaliya uu xidhan yahay shakhsiga la yiraahdo Fahad Yaasiin marka waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya dibanaha dulmiga loo haysto in loo soo daayo aan wax damiyana loo haynin anagoo Hargeysa jooga xaaskiisii intaaba mashaakilaad iyo dibba na haysatay marka waxaan doonaynaa inaan wax alla lagu hayo aanu jirin gacan cadow kuma jira waxa weeye waa nin Soomaaliyeed oo muwaadina oo iska shaqaysanay xoogsada ahaa hay'adaha ajnabiga u shaqaynayay cidna dambi kama galin damina laguma hayo marka waxaan codsanaynaa in loo soo daayo Cabdisanaax Axmed Cigaal dawladda Soomaaliya Somaliland waxaan weydiisanaynaa muwaadinka reer Somaliland in ay noola hadlaan cid ka mas'uulaha ma soo sheegaan Cabdisanaax lagala xiriiri karo waayo wali alaan qof u hadlay iyo qof u dhaqaaqay ma hayno dawladda Somaliland adduunka oo dhan waxaan weydiisanaynaa inaanu qofkaasi dambi lahayn dulmi ugu xidhan yahay magaalada Muqdisho iyo sifa sharci darro ah